Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Wacan oo wanaagsan daawadayaasha qiimaha iyo qadarinta inaga mudan ee nagala xiriiraya ama nagala socda barta Shukri Sharaf Official Channel. Barnaamijka dhegeystayaal ama daawadayaal caawa waxaa idinla socodsiinaya anigoo Ubax Cabdinuur Cismaan Ubax Sagala. Waxaanan caawa daadihinayaa ama aan idinka soo salaamayaa channelka Shukri Sharaf Show Official. adigoo ku sugan cariga Mareykanka aad iyo aad anigoo ku sugan wadanka Mareykanka Shukri caawa anigaad marti ii tahay waliba channelkaaga ayaan kugu marti qaadayaa soo dhawow maasha Allah waa wax loo baahan yahay Ubax Cabdinuur iyo Shukri is arkay waa sheekadu waa alamtar la soo dhaafo caawan marayna Shukri waad mahadsan tahay sida quruxda badan ee barnaamijka aad igala qayb qaadanaysid waan ku soo dhaweynayaa markale channelkaaga baan kugu soo dhaweynayaa tiina dadka kala qayb qaadanaya markaas farxad gelin kara xasuusan horena gelin kara waxyaabo badanna maaragtay qofku uu maaragtay soo go'an karo ku xasuusinayaan ka wada marka mahadiha ka gaadho Shukri barnaamijkan adiga kulliba hal abuuray adiga keenay isla kii aad keentay baan kugu casuumaya caawa waxaan rajeynayaa dhalinyaro badan asxaab badan oo nagala mid ahayd asxaabtii maaragtay nagala soo qayb qaatay xilliyadii aan waqtiyada adag ku soo shaqayn jirneen inay kala qayb qaadan doonaan mustaqbalka dhow waan raadinaa sidaan hadda iyo casuuntay aniga naftirkeyga waxaan ku faraxsanahay inaan dareenkeyga xataa aan soo bandhigo waa loo baahan yahay aad iyo aad Shukri adiga mudan waxaan Shukri 10kaas su'aalood waxaa laga yaabaa inay noqdaan kuwa maaragtay ku farxad geliya kuwa maaragtay xoogaa aad ka yara cabsato ka yara jibato waxaa laga yaabaa kuwa inay noqdaan kuwa xoogaa xasuus kugu reeba waayo ku soo xasuusiye xilligii makiinada cajiinka yaan oran karnaa iyo kuwa kaleeto nolosha maaragtay rasmiga maaragtay ku taxalluqo la xiriira marka waxaan ku oran lahaa Shukri inta aan barnaamijkan aan su'aalaha u guda galin haddii lacala ay jiraan mid aad yara ka gaabsanaysa inaad tiraahdo ha layga dhaafo may qarxis dadka ma barnaamijka marka waxaan maqli jiray aan ka dhaxgalay waa laado jaceylku in weerarka aan riwaayad ahayd waqti adii hore aad baan u dareeyay inkastoo muuqaaladooda iyagoo hagaagsan mararka qaar dhifinaad lagu arko dadkii daawaday oo waagii bilsamaad wadanku way naga nasiib badan yihiin aad iyo aad riwaayadaas oo kale waa laado jaceylku in weerarka aadno kale markaad aad iyo aad Shukri su'aasha kuwaan rabay inaan ku weydiiyaa waxay tahay Shukri horta waxaan ku weydiiyay maxaad farxad geliya inaad eray wax badan ayaa farxad geliya balse hal iyo laba ka soo qaadanaya waxyaabo hal iyo laba iyo saddex iyo inta ugu muhiimsan nooga soo qabo waxa ay farxad geliya hadde waa markii ma aragtay qof ixtiraam iyo muujiyo iyo maxaa la yiraahdaa cizi iyo sharaf aad iyo aad amaba heybad sidii gabarnimo iyo ixtiraamo gabar Soomaaliyeed hooyo Soomaaliyeed waxyaabo badan ay farxad geliyo maasha Allah aad iyo aad waa lagama sheekeeyaan iyo lama taabtaan runtii anigana dadka ixtiraamo inaan qofka ku xadgudbin in qofkii la siiyo mudnaantiisa inaan la xaqirin wixii haddaan ku xaqiro dabcan maku farxad gelin wax maxay tahay oo kale anagu waan isdhahnaa mogta waxba ma oga ya Shukri waxba ma oga saasoo kale marka qofka inuu ma aragtay respectful la siiyo la ixtiraamo mudnaantiisa la siiyo taasoo kale aad i farxad geliso aad iyo aad runtii ixtiraamkuna aad buu u wanaagsan yahay waa la sheegaa qof wax ku siiyay waad aragtaa laakiin bini aadamku waxay aad u jecel yihiin qofka ixtiraama aad bay u jecel yihiin oo sharafkiisa milgadiisa cisigiisa karaamadiisa maaragtay xuquuqdiisa ilaaliyo runtii aad baa maaragtay qofkaas yaa waxaa kaloo aad ii farxad geliya haddii aan ku sii daro waxaa kaloo aad ii farxad geliya runtii waqtiyada farxadda sometime waa aragtay bini aadamka ilaahay maalmaha farxadda adiga gaarka ku ah maalmaha special leega ku ah qofkaan farxaddaada kaa jiran طبعا Soomaali hadaan ana marka qaar waade kafaasi jaakada sameeyna waxa waay waa iskugu talagalnaba inaan iska jijibino hadda inaan la iga jiirin ma aragto waa jecelahay hadda ay isku galayso qofka iga jiira laakiin ma jecli
aadi runtii waa arrin sax ah oo maaragtay aad u muhiim ah weeyaan shukri taa markii la barbar dhiga mid kale waxaa jirta opposite ku ah oo ama kasoo horjeeda oo ah yacni waxyaabaha aad necab tahay ama aadan jeclayn oo markaad tiraahdo aad kasii jeesan karto maxay ka mid noqon karaan maxaase ka mid noqon karaa waxyaabahan ka caroodo waxyaabaad necab tahay carada waanu imaan doonaa waa tahay waxyaaba badan aan necabahay beenta kow balan la-aanta labo balan la-aan waaba diin daraba balan la-aanta waxaan necabahay maxaa la dhahaa gudcurka fulay gudcurka waa necabahay marka hadda necabintaas leeman ku ekaya dadku waa dii kale waa carruurta seexan mayse waayahay halkaas aga gudbaynaa waayahay waxyaabaha ku carageliyana maxaa ka mid noqon kara markaas haddii nacaybkay uu saas yahay carada maxaa ku caragelin kara maxaad ka carootaa dad waxaa jira si fudud u carooda dad waxaa jira wanaag xitaa haddii loo sameeyo ka carooda dad waxaa jira hal maalin haddaad qaladka aad ka gasho kaa carooda runtii qofka horta qaladka iga gala qaladkaa laba kala tusaale ahaan u waxay qofka qaladka marka qaar sidaan ognahay kama uga dhacaa mid kama ah iyo mid ku talagala marka tusaale ahaan markuu qaladka kama igaga dhaco kala maanta inta ku ballamiyo oo maxaa la yidhaahdaa balantii without apologize inta la bisto meeshii intago ii imaan weyso igu gartoo kale taasoo kale dee waan ka caroodaa aad iyo aad waxaan kaloo ka caroodaa maxaa la yidhaahdaa waxyaabahan sida isku dirka camala aad iyo aad waa taasoo kale ma jecli waadan uga caroodaa waxyaabo badan oo ka caroodaa jirto laakiin mararka qaar waan wax weyn kama soo qaado waayo waktigaaga qaaliga inaad qof kaa carooda iyo ma aragti aad waqti ku bixiso waa xoogaa yara meel kale ku bixisaa adduunya aakhiradaada ka badan noloshaada ka badan caradana waxaa fiican in xoogaa la xakameeyo waa la caroonaa biniaadanaa layahay waa la caroonaa laakiin caraduna xad iska yeelato aad iyo aad waayahay shukri runtii ereygan carada markan aan hadda soo qaaday waxaan wejigaaga yara ka akhristay waxoogaa mood yar inaad gashay oo yacni ay muujinaysa sidaad yacni u jeclan inaad carooto runtiina caraduna waa cilmi shaydaan ba rasuulka sal alla alay wasalam yiri caafimaadkana uma fiicna ogu caafimaadkana uma fiicna nolosha uma fiicna aad iyo aad waxyaabo badan baysan carada u wanaagsanayn oo aad bay lid ugu tahay in maaragtay qofka biniaadamka jirkiisa maskaxdiisa iyo maaragtay akhlaaqdiisa iyo diintiisa ay caafimaad qabto hadduusan carada maaragtay ku talax tago waayahay taas markaan halkaa uga gudubno shukri waxaa jira adduunyaanu joognaa way iska shida badan tahay way iska sha'ni badan tahay way iska marxalada badan tahay aayadii quraanka haddaan ku xasuusiye waxay ahayd kulla yawm fi shan waxa waa maalin walba sha'nigeedii iyo waxay wadataa amuurteeday wadataa ilaahay subxaana watacaala waxaan ka rajaynaynaa inaan kuwii ku baasana imtixaanka in ilaahay naga dhigo nagu daro shukri marka waxaa jira waxyaaba markaad aragto ama social media kale aad ku aragto ama dadka dhexdooda aad bulshada aad ku aragto ama laga yaabo gurigaaga inaad ku aragto ama laga yaabo inaad familigaaga ama eheladaada qaraabadaada ku dhex aragto waxyaaba kaa yaabiya oran karto maxay ku dhacday waxaan dhacaan waa maxay maxaa sababay waay ay istirahdid runtii waxyaabaha oo aan la yaabay inay salka ku haysan umalaynaa su-aasha inay tahay hadda laba cisho ka hor waxaan social media sidaad aragtay waa sheekadu baraka male ayay maraysaa mararka qaar wax kaa farxiya wax kaa nixiya wax ku muruga geliya waa iska waa duni adoo raas caseer iyo raas kamboni joogtid amaba maraykan oo haayo oo waxay joogtay shugriga UK joogta unbaa daqiiqad gudaheed wax walba ku arkaya baata mogta wixii dhan social media laga sheekeynaya haddaba daraadoo kale waxyaabihii nagu yaabka badnaa waxaa kamid ahayd in lasoo gudbiyey ilaahay cimriga u dheereeyay lul jiilaan cali laba cisho ka hor waxaa lasoo dhigay social media madaxweynihii hore cabdiqaadir salaad xasan ilaahay cimriga u dheereeyo beenta intaa la eg dadka ahlu sharafka ah ee Soomaaliyeed dalka iyo dadka u soo halgamay in been intaa la eg laga gudbiyo oo beentii qofkii gudbiyana aan ma aragtay talaabo laga qaaday waxba wax sharci xakameeyo lahayn
marka dunida horumartay waxyaabo badan baa maaragtay laga hormaraa ayaab le 30 sano kadib wadankii waxyaabo anagii qurbihii iska sidaan isaga daala dhacsiya la isaga rafaadsan in madaxdii xataa laga xishoonin dadkii fanka iyo dadkii mujtamaca halbowlaha u ahaa wixii doona laga baahi karay easy ay noqotay aad aan kuugu daro shukriye taas runtii waxaad moodaa dadkeena Soomaaliyeed in social media aan maaragtay qaab kale ka fahanay oon yacni ilbaxnimo u aragno yacni qof bini aadan dulmi laga tacaalo oo karaameeyay oo bashar ah oo qiimo leh oo bulshadii iyo ehelkii iyo ummadiiba qiimo iyo maaragtay wanaag ku dhexlay sharaf iyo mulki inta ku dhexlay in aad arkayso qofkii sharafkiisii lagu xadgudbayo cirdigiisii lagu xadgudbayo magaciisii lagu xadgudbayo been iyo sharci qofkii celiyana aanan helin aynan jirin marka waxaad moodaa bulshadana Soomaaliyeed inta indha ku garaadlaha inay aad u badan tahay oo inta maaragtay aqliga ku garaad kale ama maaragtay aqliga saaxiibku ah inay ku yartahay moodaa waa markii laga hadlo kuwa social media ku jira waayo runtii qofku markuu aqli fiican leeyahay oo diintiisa iyo aqligiisa intiisaba ay maaragtay u dheelitiran tahay kuma degdeg waxyaabaha qaarkood qof bini aadan xumaantiisana ma wado sharafkiisa iyo cirdigiisana ma wado wax been ahna kama uu sheego مثلا هذا لبدا qof hadda aad magac dhawday waa laba qof oo ixtiraam iyo qiimo umada Soomaaliyeed ku dhaxla weeyaan qolana waa maaragtay fankii suugaantii qofna waa dad siyaasiyiinta wadanka soo martay waliba dadkii lagu jecel kamid ah marka yani waxyaabahaas la soo gelinay waa been ay tahay been waliba dulmi isla socda weeyaan marka qofkii arka newskaas oo kale waa runtii ani labada mar ugu horeysay runtii been buu uma maleynba waa sadaqa warkii inkastoo lulu jeelaaniya programka soo sameeyay iyada kuleedii la wareystay waxa laga naxo laga argagaxo waa qofka ehelu leeyahay asxaabu leeyahay qofkii inta la wacono adana halow ku yiraahdo waa noolahay yiraahdo waa wax aad u badan marka waa aragtay asxaabtiisii meel walba laga soo waco waa wax naxdin leh aad marka midda aan ku darsan lahaa taas waxay tahay yani in horta qofka bini'aadamka la ixtiraamo way fiican tahay war dadkan iyaga naftirkooda waxay rabaan ba ha sheegaanba qofkiiba been ha ka sheegaan laakiin taa naftirkeeda ma ku badbaadayn waa qof isaga naftirkiisa u sii kaba gashanaya naartii u geli lahaa u sii kaba gashanaya carar loo caroodo u sii kaba gashanaya dhibaato iyo xasanaadkiisa in lagala wareego maalinta adduunkan waa iska laba beri moogtahay marka wax yaro waxba ahayn ama sunuuda ama dhuun maaragtay wax halkaa la mariyaa in maaragtay dembiga inta leeg ay ku galiyaan waa wax aad looga maaragtay xumaado weeyaan oo looga maaragtay yaqiiqsoodo weeyaan runtii marka waxaan oran lahaa shukriyay ilaahay umadeena maaragtay khayr ha ka dhigo khayr ha siiyo xaqana ha tusiyo waxyaabo yar waxaan maqli jiray Soomaali tiraahda guriga waxa aan marin wuu dilaaciyaa inay ahayd baan jeclahay marka sababtan taa u leeyahay waxay tahay yani dadkan isma oga ayagu waxay leeyihiin sunuud yar ku raadsado views yar aad ku heshaan oo sidaan walka waa intaas laakiin ma oga dhibaatada kaga imaan karta ee dhamacdoodii iyo jirkoodii iyo maaragtay dhiigooda galaysa ma dareensana aad waayahay shukri waxyaaba badan baa caawa meeshaan yaala shukri waxaa jira ama guri ha noqoto ama gawaarida ha noqoto ama dharkaad xiran lahayd ha noqoto bal midabka aad ugu jeceshahay midabada aad oran karto aleele midabkaas is best one aad oran karto muxuu noqon karaa midabkaas waxaa la yidhaahdaa buluug maari af soomaali ama kalarkan oo buluug mugdiga ah buluuga tiqda ah buluug maari buluug navy morka buluug kalarkaas adi kalarkii buluuga ahaa buluuga oo mugdiga ah sida badoo kale ba aragta badoo kale gadaal markaad ka aad ama cirkoo kale cirka blue light camal waa balaydaa blue light weeyaan laakiin blue maari markii la yiraahdo waa badda gudaha markii la fiiriyo kalarka blue maariga taas waa dharka weeyaan haye gaarigii guriga sharxaadiisa iyo mow marka gaariga gurigii madowga kalarka ah iyo cadaanka aadan u jeclaa inkastoo
uniform camal laga noqdo meel kasta guriga tikin cadiimadu هذه gabar xataa weelashii madow ka dhigto markaasaa dhaha walaalay weelashan madow dad ka dhigto inuu wasaq yahay nadiif yahay lama kala garan kara هذه وين دعدا xoog loogu kacsanaa moogta هذه وين دعدا waxaa ka jecelahay kalarka gareyga ah damba gareyga ah dameeri dadku ay yiraahdaan Soomaalidu waxay dhahaan dameeri bay dhahaan dameeri ha kalarkaasna هذه waayahay shukri aan u imaana marka cunooyinka kale dad baa canjeelo jecel dad baa bariis jecel dad baa baasta jecel dad baa hilib dhayla jecel dad baa waxay jecel yihiin waxyaabaha yararka ah cashooyinka fudfudud oo kale sida chicken chips iyo waxyaabo noocaas ah marka waxay noqon kartaa marka waxyaabaha aad maaragtay cunada ka doorbidi lahayd maanta waxa ku casuunta hadii la yiraahdo yaaniga wuxuu yiraa maajitoor inkastoo maajitoor weyn aan ahayn walaalihi markii la casuumo marka adigu ku casuumo waxaan ku karin lahaa ma ka hadlaysaa mise cuntada caadiga kaba soo qaad aniga u baxaba maanta casuumaad baa ku fidiyo sida hadda beedkaaga kuugu casuumo kale ayaan guriga kuugu casuumo marka waxaan ku iri shukri ubax maanta way ku casuumaysaa waxyaabaha aad jeclaan lahayd maanta in ubax kugu casuunto hortaada ay soo dhigto maxaa noqon lahaa ubaxay horta Soomaali markaan nahay marka qofka casuumeyn misku sheegno waxa jecelna oo karina soo qabtay aad way dhacdaa waa run marka aad ari tusaale ku casuumay waxaa jiray wax macaan oo fara badan u kari ogtahay marka kuma su'aalahay laakiin aniga isxilqaamay alaabta isxilqaam baa la dhahaa waa runta laakiin waxyaabo waxaa jira aad filan karto oo waxaan jeclaan markaa talahaan ku casuumay hadaan ku casuumay waxaan ku karin lahaa ku sheegayaa oo aan kula jeclaan lahaa walaga Soomaaliyeed waxa isla horta ubax luqmad haye alaabta liibaan wasladii dheereed wasladii waa inta ku diyaariyo haye busteekin oo ku sameyn lahaa hilib horta kugu roodhaa lahaa aad lasaayadan waan kugu dari lahaa lasaayadan aad u jecelahay waa sameeyaa ba aqaasida isku tii laakiin ani haddaan ku iraahdo lasaaya isma sawaayada iyo Spanish kana Soomaaliya hadaan khudrada ma cunne sawaayad iyo bahalkii kale ii sheegay koosto masha Allah iyo fruit yar oo xogaa aad xilliga qaadada isaga dejisid shaah yar oo muamira oo joos yar waa gart casriye yar iyo heer calowga siir waa ku dhaqman kaaga siin lahaa qaxwo qaraarne muusinka ku karay xalwo hilaal oo ku agdhigla ma adiga wax reebay ba shukriye marka intaas oo dhan ku casuumi laa waxay daan ku arko ma sha Allah tabaaraka Allah ilaahay ku sharfo laakiin su'aasha wali aadan iga jawaabina waxay tahay yani arintaas waxa weeyaan waxaad aniga ii sameyn lahayd laakiin waxa anigu ku sameyn lahaa waxa anigu ku sameyn lahaa adaa laga rabaa hada waxaan kula jeclaado wakaya hada waxa ila jeclaatay ay sheegto laakiin way waxna kitaabada qabo okay shukri waa runta laakiin aniga waxaad ii sameyn lahayd baad ii sheegtay moogtahay yani sidaad ila jeclaatay laakiin markii la yiraahdo xaafad hebel aad tagaysaa ama xaafadda ubax tagaysaa waxyaabaha ugu horeeya oo si oran karto talo ubax maanta maxay ku sameyn kartaa waxaas may ku sameeyso oo yani adiga shakhsiyan aad ka heli karto oo si oran karto aleele waxaas hadaad maanta ubax sameeyso lahayd way fiicnaan lahayd horta bariiska markaad ii kartid ilaa basbaashid la ii looyna ku darsan lahaa واو انجرد halkaas ay xanuunay hay basbaas yaro hada muamiraho ya aad baan u jecelahay aad ya shukri waayahay shukri halkaas hilibkana waa iska kale waad raacinaysaa oo maleynaa sidaas may horaad igu sheegtay qish baad siisay marka qishkaas waa inaan meel kusoo qortaa weeyaan mustaqbalka insha Allah Mareykanka markaan kugu imaado hada waa insha Allah dafta duulahay warna baad shukri soo gaaray insha Allah waqooyi Mareykanka mar baan soo gaari doonaa insha Allah bidnilaahi kariim aad baan kugu soo dhaweyn doonaa shukri waxaa jira waxyaabo ku cabsi gelin kara mararka qaarkood oo soo karto xaasoo kale aad baad uga baqi kartaa ku cabsi gelin kara maxay noqon karaan walaalay waxaan ka cabsadaa bahladoo kale ma jecla sida badoo kale markii la tagaa daa xasuusato waxyaaba gurgurta xeebtoo kale maaragta badda waxay soo tuftaa maaragta qashin ay soo tuftaa haddaa xasuusato oo qashinkaa markaad ku dul socotid mararka qaar waxaa isdhaha bahala yar may ku jiraan ku istaagta
kaaga soo baxaya marka fulayada ahayd waa ka baqaa mugdiga waa ka baqaa qurubaha kale waa aragtay xilliga qaboobaha waqtigu isbedelaa waa mugdi aad iyo aad afartii garan fiid hore mugdi tahay afartii garan iyadoo tahay subaxii hore waa mugdi marka mugdigaasna waan ka baqaa waa gartay marka mugdigii iyo maaragtay waxyaabihii مثلا حشرات كوكلا سيدا مارك يابهان بحالدو kale waad ka yara cabsataan waaya haddaan inta ku kaxeeye aan duurka miyiga ku geeyo ka war kow maxaa kugu soo dhacaya oo diras oran kartaa kaasa adduunku igu darana wadnahayga yani wadnuhu garaacaya muxuu noqon karaa waraaba wax saas iga soo horbaxan ka baqada laakiin waraaba iska celin kartaa shukri allah baadiga waraaba waxaa la yidhahdaa ka baxaa meel allah ka dhicileeda ogleydha shukri waxaa jira xilliyada qaarkeed firaaqada aad tahay maxaad soran kartaa ku madadaalan kartaa ama aad isleedahay waqtigaaga yani firaaqada ku bixi maxaad soran kartaa walaalahay xilliyada firaaqada waxaan jecelahay inaan marka wax akhristo horta akhriska wax akhrinta inaad linkiga iyo programmada oo kale haddaan arko social mediaha in meelahan ka akhrisanayo intuunan iga dhumin aan linkiga oo kale ubaxo kale kusoo tuurto hadhow ugu si easy ay noqonay mogtahay aad iyo aad marka hobigaygu waa maxaa la yidhaahdaa akhrinta socodka iyo hawada meelaha dooga quruxda badan inaan xoogaa kusoo jiiro socod yaroo fiyaata ah kusoo qaato maasha allah tabaaraka allah aad iyo aad waa wax caafimaadka u wanaagsan shukri markaan usoo noqono akrintoo kale dadku waxay yidhaahdaan the more aa wax akriso waa the more you know everything aad ogaan kartaa ama wax walba aad ogaan karto markaad in badan wax akriso maxaa kuu soo baxa wallahi meesha waxaan ka helaa wax badan baa iiga soo baxa sida dhacdooyinka oo kale eventiska oo kale aad u jecelahay waxyaabaha dhacdooyinka eventiska nolosha maaragtay صح eventiska arrimaha bulshada society aad u jecelahay aad iyo aad waa soo kalaan akhristaa dasanoo kale iyo xanta freshka iyo jiladaha caalamiga meelahaasaa barbar baa aragtiyaa waa inaan community leader kaa dhigna marka oo dhinaca socialka inaan kaa dhigna weeyaan marka meelahaas oo kale adduunyada wixii ka dhacay yaa aad iyo aad sii weydiiyey waan jeclaa laakiin waxaan isleeyahay bal may su'aalaha ku qoran waa soo diyaar hal su'aalo waxaan rabaa madfac camal inaan kugu soo rido waa waree ma iga qafiifsada yaan ku ordin ha ordin programka oo shukri ka dhex orda studio yaan arkay ada shukri yaa lagu dhahay waad ka baxsanaysaaye shukri dhallinyaranimaan soo marnay waxaan soo marnay shukaansi baan soo marnay xaalado kala duwan baa lasoo maray xilli cajiin inta laysku diro la yirahda cajiinkii makiinadu waa kusoo daahay baan soo martay xilli iskuulka maaragtay warqadaha buugga laisku dhexgeliya wayna soo martay marka shukri alxamdulilah horta anigii adigaba maanta meel baan deganoo reer baan nahay alxamdulilah waan buuxnaa laakiin markii dib aan kuugu celiyo waaye waagahaagii cusbaa iyo markii maaragtay adduunyada bilowga ay noo wada ahayd markaan dib aan kuugu celiyo waan xasuustaa aniga horta shakhsiyan markii aan yaraa oo dee markaas lasoo kacayo marka madaxa lasoo taagay gabdhuhuba sheekaysanayaan waxay leeyihin ninkaad guursan doonta siduu buu u yaalaa muxuu haysan doona nin lacag leh ninkan nin diyaarada wataa nin taajira ninkan marka aniga waxa laiga qoraa waxay tahay weliga inaan rabi jirin nin lacag leh oo taajira inaan weliga rabi jirin maxaa dhacay waaba lagu duceysan jiray may shukri ma aqaana dabeecaddaas aniga dumarku waa ka duwanaan u malaynayaa aniga si kaleba aan ku doorto qofka laakiin lacag iyo qarash iyo adduunye maaragtay ma jecel inaan ku doorto qofku hadduu ixtiraamo oo maaragtay waqti fiican ila qaato aniga farxad geliyo yani madaxa korkiisa uu isaarto taasaa iga badanba taasaan taaganaha si fiican ma garatay marka aase shukri ahaan markaa u imaano waxaa lagu leeyahay bal shukriyey halkaas baa raggii wada taagan yihiin marka bal kii mustaqbalka aad la wadaagi lahayd mustaqbalka dee waa xilli hore waxaan ka sheekaynayno kasoo dhex saar marka subal yaan
waxay waa su'aal adag xogaa waa disease gaaray walaalay gacalisoy marka marna hadda inay sheekadan hadda wax saameyn yeelanaysaa ma jirto haddii la yiraahdo 4 qof 5 qof xabad kala dulba oo kala dhex baxo dooqaaga ah horta inkastoo gudihiisa qalbadiisa ku jirin waxaa muhiim ah la inuu daacad yahay halka lacagta meeshaas ka cararaysid daacad daradan ku ka carari lahaa aad iyo aad ya daacad darada ka carari lahaa inuu xoogaa qof diinta xaggeeda iyo ma aragtay ya dhinacaas ku fiican inuu yahay diinta xaggeeda xoogaa maasha allah agyas ya aad iyo aad shukri aan kuu sii raaciye marka qofkaas marka aan kala dhex bixi karo walaal inuu daacadiisa ku ogaan karaa su-aasha adaa keen ninkana bixiya runtii shukri marka si loo fiiriyo lama ogaan karo laakiin marka si loo fiiriyo gabdhaha waxaa la yidhaahdaa waa best detectives aa la dhaha gabdhaha lagu tilmaamaa sidoo kale gabdhuhu waxay leeyihiin sensi yar oo waxay leeyihiin yani qofka maaragtay hadday wuxuun ay maaragtay qalbiga soo geliyaan is yidhahdaan qofka ama noocaas yahay wax yani dareen u sheegayaa jira oo runtii aan dhihi karo ragga waan kaga fiican nahay oo raggu saas ma ahan marka dareen ahaantaas markii la dhaho detectivena iyo ilaahay subxana watacaala xikmad gooniyana adigu siiyey gabadhu xaq bay u leedahay markaas inay meel walba wax ka eegi karto wax ka fiirin karto maskaxdeeda takaashan karto talada ilaahay la weydiistana maaragtay meesha kama marna iyada naftirkeeda marka ilaahay subxana watacaala waa ka yiri waxaad samaynaysid samee wax ilaahay ka raaliya ha noqdaano ilaahayna la kaasho marka marba haddaad ilaahay wixii la kaashato runtii waxaan aaminsan inaada ku hungoobaynin oodan ku dhibaatoonaynin waxyaaba reer adduunka waa iska imaan karaan fashil yar waa iska imaan karaa laakiin fashilkaas naftirkiisa ma aha mid sii weynaado oo maaragtay heer yacni aad wax dooran weyda ku gaarsiiye ma noqonayso laakiin still haddaad qofkan wax ku weydo qofkan baad ka helaysaa qofkan kale haddaad wixii ka arki weydo qofkan kaleeta kaaga muuqanayaan marka waxyaabahaasoo kale in laysku dheeli tiro way fiican tahay dee taladana ilahay loo daayana way fiican tahay laakiin la dadaalo mideeda kaleeto soomaalidu waxay yidhahdaan sidoo kale qof markaad rabto inaad barato waxaad la martaa ama jabad la xaaray dhahaan ama jid la mar ama jidiin la qaybso yidhahdaan marka inkastoo gabadhii wiilkii aysan amarna ama jabadna isla maraynin jidna isla qaadaynin jidinna isla cunaynin haddana meelo kaleeto waxaa jirta yacni xogaal ah oo maaragtay xog waraysan kartaa dhici karta anyway taas marka halkaasaan kaga gudba waxaa jirta marka waxyaabaha hoose oo qofka bini aadamka lagu raaci kara ama lagu dooran kara anigu waxaan oran karaa diiniyan akhlaaqiyan maxaan ku irahdaay alla ka cabsiga qofka because qofaan ilaahay ka cabsina adigana rabbi kaagama cabsanayo markii runta laga hadlo qof maaragtay xaquuqda ilaahay ku leeyahay aan gudi karina adi xaq aad ku leedahay maba ogaan karaa maba yaqaanaba marka taabaan kugu dari lahaa laakiin markii shukriyey lasii mid baan jeclaan lahaa inaan ku darsado inkastoo la yidhi guurka waa god mugdiyaho gacan loo deysto oo qofku wuxuu kala kulmaayo ma garan karo aad iyo aad waa nasiibkaaga iyo nasiibkiisii ayaankaaga ilaahay nasiibkaaga kaa roonaysiiyo diil aad baqli jirto sheekadu halkaas ay ka dhacaysaa aad iyo aad marka ugu yaraan waxaan isdhihi lahaa halkaad lacagta ma aragto xoogaa inuu xoogaa kis haysto oose lacagtu ayna ka badan u baxay lacagta hadday ka badato xoogaa kastoo fidna imaan karta marka lacagta xoogaa in ummadaan isaga dhex jiruur karno aniga ku dheydina xoogaa hadda inaan lacagtiisa aan ku xisaabtano anigana jeebkayga waa aragtay nolosha qurbaha markii la joogo aad iyo aad waxyaaba badan baa iska soo furmaye marka jeebkaas oo kale haddaad indhaha lay ku fiirsatay aad iyo aad xagga waxbaa ka ibaanaya aad iyo aad marka qurbaha horta runtii aad baa laysku fahmay aad baa laysku bartay dadku maaragtay soomaalida waxay yidhaahdaan labada qof markay isguursadaan su-aalaha kuwa isweydiinayan waxa weeyaan warheedhe guurkan ma laba sir oo isguursatayba mise waa sir iyo daacad isguursaday mise waa laba daacad isguursaday aa la isdhahaa mogtaha kaase soomaalida qaarkood siday hadalka u dhigaan weeyaan marka labada qof markay isguursanayaan ama ay nolosha wadaagayaan inta badan waxaa jaadgareeya ayadoo labada qof laga yaabo inay isku qanacsan isku faraxsan yihiin oo waddada isla mari lahaayeen ayaa waxaa jaadgareynaya ummadahan kaleeto maaragtay ku xeeran hadday faamil tahay hadday qaraabo tahay hadday mujtamac tahay hadday asxaab tahay yacni saameyn badanayna ku yeelanayaan laakiin waa markii albaabada loo faragelin dad banaan la dhihi karaa aad iyo aad waa markii saameynta marka ay ku yeelan karaan qoyskaas marka runtii lacagta faraha badan ama hantida faraha badan runtii
waxaa lagu ducaystaa haddii aad hanti helayso xitaa inaan ilaahay kugu fidnayn baa lagu ducaystaa waayo marmarka qaarkood maalkaagii iyo waxa aad tacbaysaba adiga naar ku horseedi kara marka adduunyo keliyana ma ahan in la eego waxaa muhiim ah yani adduunkii aakhiradiina aad isku wado weliba aad aakhiradaadana aad yani waa meelaan laga dhiman doonin waa meelaan laga gaboobaynin waa meelaan laga tagaynin marka inaad baltaa adiista aad sahay wanaagsan usii qaadato haddii ilaahay irsaaqad fiican kusoo geliyey oo ilaahay maarata hanti fiican ku geliyey aad maarata wixii sadaqaysto waxaad sii hormarto dadka Soomaalida waxay yiraahdaan Soomaalida ma ahanay yani rasuulka sallallahu alayhi wasallam ayaa yiriba waxa aad leedahay waxaad maanta haysato ha ku xisaabtamin malihid laakiin waxa ka horeeyo sadaqaysatay baa leedahay marka taasaan kuugu dari lahaa Shukri runtii waxyaabo badan oo dadku isku doortaan way jiraan gabdhaha qaarkood ragga waxay ku doortaan waan garanaynaa waxyaabo badan oo laga wada dhagsan yahay jirta six baad man leeyahay iyo maxaa la nin dheer oo saana ma yahay iyo sheekadii hableey hadba guursan doontaa baa la soo dhacday nin dheer oo gol xale iyo waxyaabo noocaas ah six baagi ma sanadahan daba ma tahay anaga dadkii dhaxaman waa run marka wixii marka yani xilligaasna waxba taagnaa maantana waxba taagan marka wixii marka la isku keeno waa un isla meeshii un bay u socdaan marka sheekadii ood qaadisii jiidis waa isku beeshi waa isla guri geynteedii oo aad iyo aad Shukri markaan rabo maanta Shukriyay ka soo qaad maaragtay waxaan ahay ma joogo hadda ma ihi laakiin mustaqbalka ma aha yani xilli hore markaan soo xasuusto oo xilliyadii hore to hadaayo kale aan kugu soo hadal qabsanaya mogtahay marka Soomaalida hadda qurbay imaaday waxyaabo badan baa banaanka yimid waxyaabo badan baan la xeerinin laakiin xilligii hore markii la fiiriyo waxyaabo badan baad moodi jirtay in maaragtay la dabooli jiray oo uu ka mid yahay qofka bini'aadamka dareenka uu leeyahay iyo maaragtay hadday gabar tahay xishood baa ku laran wiilasha sidoo kale xishood baa ku larlaan jiray waxaa laga yaabaa waalidiinteeni markaan dib u milicsano inaanan arki jirin hooyadeen oo aabaheen ugu yeeraysa magacaan magaciisii ahayn oo kale laakiin hadda waqti xaadirkan yani adduunku isbedelay oo yani aan adduunyadii maaragtay la jaan qaadno la qabsanay oo luuqado badan dadkii barteen oo maaragtay qof walbaaba dhaqan gooniya markaas yaqaano marka haddaan oran lahaa Cabdullaahi caaw halkaas la soo fariisiyo la soo istaajiyo waxaad ugu yeeri lahayd mudane alla يعزك cimrigiisa alla hadheereeyo marka waxaan jeclaa inuu igu jawaabo marwo waa maasha Allah waa laba eray aad isku qalmo weeyaan maasha Allah tabaaraka Allah taas waxay ku tusinaysaa qiimaha iyo qadarinta qofka bini'aadamka adaan kugu celiya adigana bal ka waran ninkii baashar saasana dhaxalisa aniga runtii waa isla anagii bari dhaweetaa wiil yar maaragtay qadka wuxuu soo galay TikTok moogta markaas wuxuu yiri waryaada nimankiinaan oo duqmaad yihiin buu ku yiri gabdhaha wuxuu yiri markaad leedihiin uu yiri shokolaatina nanaciina malabka markaad dhaysiin uu yiri war waxyaabo maaragtay qiimo leh waxaan qiimo ma lahayn waxyaabo qiimo leh gabdhaha uu waca naxbadayda geelaheedayna jawaankayga bariiska hada waxaas iraahdo yiri moogtahay marka waxaan isweydiiyey marka waa run oo waxaan hadda maaragtay macaan iyo heblow iyo dhanaan iyo qaraar iyo waxaan waa wax yani basiida markii si loo fiiriyo qiimo badan aan lahayn laakiin waxa uu ka hadlayo leeyahay warsaas ugu yeerada uu dhahayo ay ka qiimo badan tahay laakiin haddana ayadoo taas jirto ayaa haddana waxaa la sii qiimo badan bini'aadamka waxyaabahan macaanka iyo heblowga iyo maaragtay malabka shinnida iyo la leeyahay mogtahay waxay uga macaan badan yihiin waxay tahay yani erayada oo raahda markii la dhaho yani iyo meesha ay taabanayaan ayaa kala bedelan marka haddii aan maanta macaan aan dhaho iyo haddii maaragtay xabiibi aan dhaho ama xayaati aan idhaahdo yani waxaan aaminsanahay inay quluubtiisa ku yeelanayso wax yar oo maaragtay dareen sansi gaar ah inay gelinaysan aaminsanahay laakiin jawaan bariso haddaan idhaahdo oo iga sii ordaya soo maaha marka anigu waxaan door bidi lahaa erayadan kaleeto runtii been kuma sheegaan in nolosheeda markaan kaala hadlo oo maaragtay si gaar ah markaas aan hal eray kaaga iraahdo aniga ma jecli xitaa magacayga in laygu waca ma jecli maasha Allah haye marka magacyo gooni ah oo marka qofkaas iila baxo inuu igu wacan jecla aniga naftirkeyga magaca inaan ugu waca ma jecli
marka magacyo gooniya inaan markaan ku samaysto meesha waxa ka dareemaysaa in reer romantic iyo reer diyaarsan yahay masha Allah waqti badan waa runtii waxaan waqti badan la geliyba laguma wadheefsadaba waa run marka yaa badan baa waxa u baahan macaanto quruxay qalbiye lagu dhaho saas iga dheh xogaa waa waqti badan baa la geliyay meesha iska aad iyo aad aad iyo aad waa tahay gabagabadiisi baa isla soo barnaamijka adiga wadeeca aniga marti ku ahaa wax cabdinuur ubax sagal iyaaga quruxda badan sidaad ii casuuntay waan ku faraxsanahay aniga naftirkeyga 10 su'aalood aan ka jawaabay oo aniga ku dheediyay qadimay asxaabta kale insha Allah ay ku xeeran gabdhihii iyo dadkii aan isla soo shaqeynay insha Allah barnaamijka uu ku soo socdaa si diyaariya aad iyo aad haddaba sii xasuusnaada gabdho iyo wiilal intaba cid kastoo lagu martiqaadaba maaragtay barnaamijkan waxaa la rabaa inuu dhexdhexaad noqdo waaya shukri bal fankii sugaanta markaad aado heesihii hore heesaha dambe gabayada guruuyada shirbyada everything baraamburka wiilasaqo dhaanto suurow guurow waxaasoo dhan marka la yidhaahdo dadkii hore dadka dambe yaad siin lahayd dadkii hore markii la yidhaho waxaan dooran lahaa qadra daahir cige alla yaa cisag qadra fanaanadeeda ah haye marka heesa badan ay qaadaa heestaan tusaale ahaan haddii dhagta ruux la jaro dalku joogaya miraha laga janamsadaa waa garta waxaan xasuustaa qadra daahir cige heesii hore u qaado ah dadkoo dhani ha wariyaan dareenkaygu inuu yahay naftu kay la duubneed ogol inaan la jiifsado runtii darin inaan la jiifsado darin waa runta darin marka runtii qadra daahir cige jecel xoogan baa beriga maaragta yaa jiray marka fanaankii runtiina sheekadoodu waxay ahayd dhabka hadal oo kaleetay u ekayd marka fanaaniinta markoo noloshooda heesooda saasoo kale yihiin aad iyo aad way kaga saameyn badan yihiin qofka sida heesaha ganacsiga u qaada amaba qisada qof kale ku dhacday oo la gudbiyo kale xitaa sometimes qisada adiga naftirkaaga haddii si kugu dhicin waxaa laga yaabaa qof ay ku dhacday in lagaaga sheekeeyo markaas adigii aad iska soo qaado ama aad gasho mood ah inaad qofkii oo kale adiga aad noqoto kale ama qofkii oo kale adiga sheekada ay kugu dhacdo kale marka waa arrimo waaweyn weeyaan marka waxaan oran karaa dadkii hore suugaantooda horta wax walba ku cabiri jireen kusoo gudbin jireen meesha hadda anagu aan social media wax soo dhigno oo weliba wixii aan xikmadaysnayn aan soo dhigayno yacni dadkii hore waxay ahaayeen yani sidan oo kale way ahayd laakiin yani wuxooda wax murti leh oo qof walba fahmi karo oo dee dadka caqliga u saaxiibka leh ay u ka qaadi karaan ayay kusoo bandhigi jireen luul jeelaani oo kale aad iyo aad luul jeelaani waayahay dhanka ragga markii la fiiriyo waa heesaha xamariga kuwii hore kuwa dambe waa iskaga imaanaynaa kuwii hore markii la dhaho cabdiqaadir jubba waa garta cabdiqaadir jubba waxaan ku xasuustaa heestii maxay ahayd doobiga may ahayd markuu geelo dayr dhalo dambarka aad ka maashaa aad iyo aad runtii waa dacaladan umalayna xamar daawo dacalada inay tahan jecla heestaas heeso badan uu qaadaa waxaa waaye fanaaniintii runtii laguma soo koobi kara halkan okay waxaan imaaday fanaaniinta yahay fanaaniinta dambe markaa imaano shukriye gabdhaha yaad farta ku teega lahayd wallahi gabdhaha way badan yihiin xiis la dhaho maasha allah ree jigjiga amuu jacaylku badan yahay qaadamaan aad iyo aad nimcayaa siinoo kale caashakiin gabadha qaada wariyaha qaro sax aad iyo aad way badan yihiin halkan baan ka salaameynaa caashakiin maraayo xagga wiilasha miya xagga wiilasha markii la eego xagga wiilasha waxaan dooran lahaa nimcaan hilaac waxaan dooran lahaa iskalaaji axmed zaki wow waa gartay waxaa kaloo jira wiilkan jigjiga isna jooga magaciisa xariir axmed suldaan seeraha suldaanka geeska suldaanka geeska okay hadda waa kama tegina amrayna ya
aad iyo aad maya inta kaloo ka tagnan anaga waa idin wada jecelnahay lama kala xanaaqaan lama kala xanaaqaan waa hal iyo laba un waka waqtiyada maasha Allah tabaarak Allah marka qaar gaariga wato kula iska dardartaa aad iyo aad waayo shukriye markaan usoo noqono macaan hilaaco kale heesaha uu ku luuqeeyo مثلا kasoo qaad highway baa saaran tahay waxaa laga yaabaa 150 mayl oo kale inaad kuusii dhiman tahay waqti badan baa ku sugaya rabtaa inaad jarto qofna kulama saarna gaarigii heesaha aad jeclaan lahayd inaad macaan hilaal hal iyo laba aad kasoo qabato wadada aad ku marto hees uu soo qaaday oo beri dhawadaad u malaysideen inuu gabdhaha xaggooda hooyo inay tahay magaceeda hadda ma xasuusto heestaa ma aragti heesta nasab maaha ruuxii nasab gabdhaha ku xadgudbaa dhibaato u geystaa waaye aad iyo aad heestaas oo kale jaceylkii qabyoobay heestan lahayd aada u jeclahay iskalaaji lajan asigana haye iskalaaji heesa badan uu qaadaa hal iyo laba bal nooga soo qabo xusuusta waa in dib loo celiyaa bal adigana ila xasuuso iskalaaji heesa badan uu qaadaa runtii iskalaaji heesa badan uu qaadaa waa runtaa heesiisu waa bad fanaaniinteena maasha Allah ilaahay maaragtay ha barakeeyo heesa waxay keeneen aad u qiimo badan aadna u qurux badan مثلا dhabka ka hadal noqon kara heesta kun jeer qosol maalintaada aad iyo aad heesa kale waxaa jira hadda beri dhawata heesu soo qaado waxaa jirta banaadir iyo hodan iyo maaragtay degmooyinka gobolka banaadir uu aad ugu kastoo degmadeedii aan meesha ka dhex maqlin aan ka dhex arkin aniga number 1 heesta halwadaag markuu ku bilaabo waxaa iri gacan baa ku taagay baan ku iri halwadaag baa hir aniga marka maasha Allah marka aad iyo aad marka shukri gunti gabagabadii baan isla soo gaarnay xabiibtii waqti badanna waan kaa qaatay igana raali noqo barnaamijka waxaa laga yaabaa sidii aad barnaamijka waxaa waaye waa adiga caawa adaa ku wata marar kalena waa qaban doontaa insha Allah باذن الله الكريم marka shukriye barnaamijkeena caawa aan ku eegaynay 10 su'aalood ee aadka u quruxda badnaa aadkan u qiimaha badnaa waxyaabo badanna aan ku gorfaynay ayaan inta ku soo gabagabaynaynaa aniga shukri barnaamijkeedii caawada aniga maaragtay idin la socodsiinayay stuudiyaha waa ubax iyo shukri waada iyo shukrina way isla wada daadinayeen inkastoo barnaamijka saarahan uu ahaa shukri ha ilaawina shukri dhammaantiin dowladkii daadiyahan waa ubax cabdinuur